Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhageysanaysaan. Kusoo dhawaada warka Mudumbarawe News oo xilligan si toos ah idinkaga imaanaya magaalada Carcassonne ee wadanka Faransa. Waa habeenimo Khamiis ah, taariikhdan ay ku beegan tahay 24-ka bisha koowaad 2019. waxaana warka caawa idinla socodsiinaya anigoo ah Aways Sayd Abuu. Qodobada warka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirada uu magacaabay madaxweynaha Hirshabelle oo maanta la dhaariyay, gudoomiyaha aqalka sare iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray xarunta maamul goboleedka Puntland ee Garowe, Onalif oo ka hadashay siyaasadda dowlad deegaanka Soomaalida, saraakiisha ammaanka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo faahfaahin ka bixiyay howlgallo amni sugid ah oo halkaasi ka socda. dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warkayga caawa ugu door corona. haatana kusoo dhawaada warkaasi oo fidsan. waxaa maanta magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabelle lagu dhaariyay wasiirada cusub ee maamulkaasi. wasiiradan ayaa waxaa dhawaa magacaabay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare, waxaana maanta lagu dhaariyay gabagabada kulanka baarlamaanka maamulkaasi. sidoo kale waxaa goobta lagu dhaariyay xildhibaan ku cusub baarlamaanka Hirshabelle kaasi oo bedelay xildhibaan Cabdiwali Maxamed Ibraahim oo ku geeriyooday qarax looga xiray gaarigiisa. wasiiradan oo la dhaariyay ayaa waxa ay u badan yihiin xildhibaanada maamulkaasi, waxaana soo baxaya warar sheegaya in madaxweyne Waare mooshin kaga hortagayo xildhibaanada uu wasiirada ka dhigay. gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha baarlamaanka Puntland, madaxweynihii hore Puntland haatan ah senator ka tirsan golaha aqalka sare Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole iyo wasiiro ayaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay wafdiga gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi. ujeedka safarka uu gudoomiyaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi uu ku tagay magaalada Garowe ayaa lagu sheegay ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland, Dr. Saciid Cabdullaahi Dani. wafuud kala duwan oo ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya, maamul goboleedyada, siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin hore xilal uga soo qabtay dalka ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay gaaraan magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland si ay uga qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay Dr. Saciid Cabdullaahi Dani. maalinimada Sabtida ah ee soo socota, taariikhdan ay ku beegan tahay 26-ka bisha January, ayaa la filayaa in magaalada Garowe ay ka dhacdo xaflad lagu caleemasaarayo madaxweynaha dhowaan la doortay ee Puntland, Dr. Saciid Cabdullaahi Dani. war-saxaafadeed ka soo baxaya ururka Onalif ayaa sheegaya in shacabka Soomaalida ee ku nool ee dowlad deegaanka ay xaq u leeyihiin in ay ka tashadaan arrimaha siyaasadda, isla markaasna ay ismaamulaan sida uu dhigayo dastuurka Itoobiya iyo heerarka caalamiga ah. Onalif waxa ay sheegtay in shacabka Soomaalida ay haystaan xorriyad cidda ay u dooranayaan in ay qabato hoggaanka, waxaana ay uga baaqeen xisbiga haya talada dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowladda federaalka in ay qadariyaan rabitaanka iyo sharafta shacabka, isla markaasna ay ka hor yimaadaan tilaabo kasta oo khatar gelin karta amniga iyo danaha shacabka Soomaalida. bayaanka ka soo baxaya jabhadda wadaniga xureynta Ogaadeniya Onalif ayaa sidoo kale lagu sheegay in khilaaf kasta siyaasadeed lagu xaliyo si cadaalad ah iyadoo lala tashanayo dhammaan dhinacyada qusaysa. dhegaystayaal, warka Mudumbarawe News aad kala socoteen waa inaga inta, waxaana warka idinla socodsiinayay anigoo ah Aways Sayd Abuu. idinkana waad ku mahadsantihiin dhegaysiga wararkayga, waxaana idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.